kumaadsan waad u jeedaa waxa aan radayna waa meydkii al-shabaab maanta waxa waaye waa maalin kaloo taariikhiya waxaan haynaa meydkii shabaab aan raraw haynaa qoryaho hubkoodii waa kan beeka imkaana ka mida sabanno aakayaal beeka meel laga wahay meydkii horyaan qaado u haynaa meesha aan joogno waad aragteen waa oo baaladoontii waa tana marka meydkaana rabnaa inaan geyno ilmaha idin dhibi jiro xoolaha idin ka qaadi jiro idin baadi jiro waa kuwaas inaan foolasho hore aan tusnaan rabnaa baabuur gaariyaal badan ay kala saaran yihiin kuwa biyahay raaceen marka waad arki doontiin haddana intaanad aragtiin wax kalena inaad soo aragteen oo filaad ka timideen xagga goobta ka dhacay waa halkaan waa oo baale dagaalku wuu socdaa haa waad u jeediin webigaa la iskala tilaabay marka guulaan rajaynaa insha Allah soo galnay dabcan horta magacayga kuma bilaabin magacayga inay yaqaaniin oo malayna shabaab haday muuqaalkayga arkaan magacayga waa Saciid Fanax shabaabow horta waa isnaqaanaa maanta isma baran horena waa idin kugu sheegay waxaan damacsana aniga kaliya ma ahane waxaan dhamaantay damacsanahay waxana soo kiciyeen waa ogtihiin waxa dhamaanta waa ogtihiin waa kuwana qoryihiin beekaymadiina sabinadiina meedkiina waa kana daadsan meesha waa kana taliyihiin waa kana awa kii kala gacan kaliya ahay waa kana kii idin hogaaminayo kow idinku hogaaminayo waa kana saakana markaa idin kala hadlaayo waa maqlayseen waxaan la hadlaayo waa shabaab kii waxaan u sheegay baanay dadka ku dhiirigeliyaan ninkaas shaati guduudan leh oo taliyaha ah oo meesha yaallo waa tumaay waa arkayni uluw ku tumaay asoo geliyahay uluw ku tumaay waa gelinaay xoog ku gelinaay gacmay ka hadlaayeen asii waxay dhahayeen waa jabeena gala waa u sheegnay inaan haleera aan jibino gacankooda anagu haysanno waa kala hadalnay yaan baan leedin sheegin ilmo yar yarow wiilal Soomaaliyeed waa kuwaan inaan dilna ugu matalagina anaga laakiin qofku hadduu dib ku dhex cararo waa dhimaa waxaan la hadlaa dadka dhalay ilmahan nimanka dimbilayaasha ilmaha ay soo dirayaan dadka dhalan la hadlaa cidday hadda wax u nool yahay waxaan kula talaa in ilmeera ka reebato waa dimbilayaal nimankaanu dalal shisheeyay ka yimideen anaga magacaygu waa Suldaan Daahir Axmed Gaabow salaadiinta muduloodan ka mid ahay waxaan koofiga u soo qaadno ciidanka u dhex jooga inaan dhiirigeliyo lagana sifeeyo waddankan shabaab nimanka la yiraahdo war taleefan la soo diray iyo handadaad laguma joogi karo dadkan waa dadkii dhulkan iska lahay 15 sano ayaa mataqaanaa dadka la handadaay asa malafsi iyo waxba meel iigu kan lahay maanta waa soo dhamaatay maanta webiga lagu daadshay meydkooriya yaala hubkii laga soo qaataa yaala waa cadayn ummadda Soomaaliyeed aan rabno inaan u dirno marka gumaysi waa dhammaaday leesma gumaysan karo Soomaali cadaalad ay u baahan tahay nabad ay u baahan tahay diinteeda iyo sharafkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda inay ilaashatay u baahan tahay nimankan waa ogtihiin diinaan wadnahay intii yiraheen heer waxay gaartay gabadha inta la waco leeyahay kaalay ii imaw idoon xaaskaaga ahayn ila jeefa leeyahay hadday diidana gaala taa leeyahay waa ka zinaysaa haddaana ka zinaysayna gaala tahay diinteenu waxaas ma qabto waana diin ku dheel iyo diin ku cayaar waa iyo diintoo la fool xumaynayo